sanad guurada 76 ee aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliya xaflad lagu dabaaldegayay ayaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta Engineer Yarisow ee magaalada Muqdisho. Ciidanka booliiska Soomaaliya oo ah ciidanka ugu facaweyn Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa la unkay 20kii bishii December sanadkii 1943 70 sano ayaana ka soo wareegatay aasaaska ciidankaasi. dabaaldegyo dhoolatus iyo gaadaka ciyaar ayay ciidamada qaybahooda kala duwan ee booliiska Soomaaliya ay ku soo bandhigeen xafladii loogu dabaaldegayay 76 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliya, waxaana ay wateen gaadiidka gaashaaman iyo noocyada kala duwan ee gaadiidka ay ku howlgalaan ciidanka booliiska Soomaaliya. xafladda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday hay'adaha dawladda Soomaaliya, safiirada caalamka Soomaaliya u jooga iyo qaybaha kala duwan ee shacabka degmooyinka magaalada Muqdisho. وهي كمية عيدك هرمعت وسيدة كاركا وطوبرا يقولوا بحيوثي أرسليه اللولا يوم واجبات يقولوا عيدك وحتى كاروة سويدة أمنية إيوه حصلينتا iyo ka qayb qaadashada goobaha u baahan awood. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka sheekeeyay waajibaadka shaqo ee booliiska. taliye Xijaar ayaa sheegay in booliiska loo tababaray ilaalinta shacabka gaar ahaan dumarka iyo carruurta loona carbiyay dhowrista xuquuqda aadanaha. walow ay jirto duruufo adag oo ku xeeran haddana nabadgelyada aanu maanta haysanno ee arrimaha gudaha iyaga saldhigu ah sidii loo tayayn lahaa saraakiisha iyo ciidanka intiisa kale waxaana had iyo jeer la siiyaa tababaro kala duwan gudaha iyo dibadda. tababaradaasoo kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaabanba leh ilaa heer jaamacadood leh oo la gaarsiiyo tababaro gaagaaban iyo kuwa dhaadheer oo ay ka faa'iidaan ugana faa'iideeyaan ciidanka intiisa kale si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee loo xilsaaray. wasiirka amniga gudaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa u hambalyeeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee maanta u dabaaldegay aasaaskooda isla markaana ay ka soo wareegatay 76 sano. dhammaan waa la wada soconaa horumarka iyo waxqabadka la taaban karo ee booliiska Soomaaliyeed gaaray muddooyinkii ugu dambeeyay. waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliisku qabtay sida ka hortaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aad u badan ciidanka booliiska gacanta ku dhigay, fashilintii iyo gacan ku dhigida dhagarqabayaasha ku howlan waxyeeleynta ummadda Soomaaliyeed, gacan ku dhigida gawaariga qarax laga soo buuxiyey sida gaarigii lagu qabtay xaafadda Hodan, baaridda ururinta cadeymaha iyo dabagalka joogtada ah ee ku hayaan dambiilayaasha isku filnaanshaha booliiska Soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka Soomaaliyeed taas oo lagaga kaaftoomay dad shisheeye oo ciidankeena tababaro. Abdicasiis Ibraahim Axmed Oke, TV Universal, magaalada Muqdisho.